gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meere Makaraan ayaa sheegay in saacadaha soo socda ay la wareegi doonaan degmada Ruunirgood oo wali baaqi ku ah gacanta al-shabaab mar uu kula hadlayay gudoomiye Makaraan boqolaal qofood oo ku sugnay deegaanka Ceelmuluq gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu sheegay inuu socdo qorshihii ugu dambeeyay oo ciidamada hubanta ay kula wareegi lahaayeen Ruunirgood sidoo kale waxa uu sheegay inuu gabagaba yahay howlgalka gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu Axmed Meere uu tilmaamay in al-shabaab laga saaray badankood gobolka Shabeellada Dhexe hadalka gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ayaa daba socda xilli saacadihii la soo dhaafay uu socday dhaqdhaqaaq ciidanka dawladda ay doonayaan inay kula wareegaan degmadan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa dhoobtay meel aan ka dheereen Ruunirgood waxaana socda qorshihii degmadan gudaha loogu gali lahaa sida habeen ka hor uu keenan u sheegay Sani Cabdulle oo ka tirsan saraakiisha militariga Soomaaliya degmadan oo daris laha gobolka Galgaduud ayaa muhiim u ah cidda xilligaasi joogta gobolka waana magaalo istiraatiiji u ah isu socodka labada gobol sanada ay joogeen al-shabaab balse markan waxay u muuqataa in gacantooda ay ka sii bixayso xilli militariga Soomaaliya uu baxsad u yahay qabashada magaaladan